السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتك وحنا برتانا كلنا يوتيوب كاي برشاد شيباadhka soo dhawaada meel kasta aad joogtaan sidaad horeba nooga barateen waxaan inoo soo socday casharaanteeni taxanaha urine analysis-ka waliba qaybtii chemical examination-ka insha Allah maantana waxaanu qaadanaa casharkii leukocyte-ka intaynaan u galin leukocyte-ka waxaan isweydiinaynaa shan qodob aan doonaynaa inaan ka jawaabno shanta qodob oo leukocyte oo maxaa tahay normalka saxda ah ee leukocyte-ka looga baahan yahay urinta waxyaabaha sababa in leukocyte-ku uu ku bato urinta calaamadaha lagu arko qofka leukocyte-kiisu uu badan yahay iyo sida loo daweeyo shanta qodob ayaynu isweydiin doonaa insha Allah horta leukocyte-ku marka hore waa unugyada dhiigga cadcad ama loo yaqaano WBC-ga badanka jirkeenu uu isticmaalo inuu la dagaalamo waxyaabaha jirka soo weerara infectionska bacteriyada viruska waxyaabahaas ayaa loo yaqaanaa leukocyte marka leukocyte-ka waxyaabaha inaga difaaca waxa kamid ah waa horta waa immune system inaga caawiya inuu inaga la dagaalamo wax kasta oo jirka soo weeraraya waa unugyada difaaca ee jirka ayaa la oran karaa leukocyte normalka hadaba looga baahan yahay in urinta lagu arko normally kaadida in lagu arko WBC ama unugyada dhiigga cadcad waxa kamid ah ugu yaraan mararka qaar warbixinada qaar waxay ku oranayaan waxba laguma arki karo warbixinada qaar waxay oranayaan 2 ilaa 3 waa normal waa sax waa lagu arki karaa ilaa iyo mararka qaar ay gaarsiiyaan ilaa 5 iyo wixii ka yar waa normal marka inagu maadaama aynu laboratory-nahay waxaynu raacaynaa oo badanka aynu casharadana ku dhiganay 5 iyo wixii ka yar 1 2 3 ilaa 4 intaas waa iska normal leukocyte lagu arki karaa kaadida xaalad normal ah wixii inta ka badan kolba xaalad ay noqonaysaa laakiin 5 iyo wixii ka yar waa xaalad normal ah oo aan loo tixgelinin in wax dhibaato jiraan marka waxa kale oo jira hadii ay badato ama lagu arko W fara badan waxyaabaha loo yaqaano hadii high number of leukocyte urine lagu arko leukocytopenia waa la oran karaa pyuria waa loo akhriyaa oo labadaba in more WBC ama more leukocyte in urine qodobka saddexaad ee isweydiinaa waxa weeye maxaa sababa hadaba in leukocyte fara badan urine lagu arko maxaa sababa waxa ugu muhiimsan aad shan qodob aynu soo qaadanaynaa urinary tract infection-ka oo ah caabuq ama infection ama bacteria ku dhalata kaadi haysta ama inta kaadida ay marto ama dhuumaha kaadida qaadaha noqoto oo loo yaqaan urinary tract infection taas oo sababi karta in haddii bacteria halkaas soo gasho la soo daayo unugyo badan oo difaaca si ay ula dagaalamaan saa daraadeed kaadida la soo raacinayo WBC fara badan waxa kamid ah kidney infection haddii kelida infection ku dhaco ama dhaawac soo gaadho ama maadaama oo urinta laga soo filter gareeyo kelida haddii kelida dhaawac ka jiro ama dhibaato kale ka jirto ama caabuq ka jiro waxa laga yaabaa in WBC badan la soo raaciyo iyadana urinta waxa kaloo kamid ah kidney stones haddii kelida dhagax ku jirto iyadana sidoo kale in leukocyte-ku urintu farabato ayaa laga yaabaa iyadana inflammation baa kamid ah laga bilaabo ureteraha ilaa kelida inta u dhaxaysa inta caab ku dhacana iyana uu keeni karaa sidoo kale waxa keeni kara mararka qaar dawooyinka qaar oo waxay leeyihiin warbixinadu sida NSAIDs-ka steroids-ka iyo antibiotic-ka qaar kamid ah waa lagu arki karaa WBC fara badan urinta qodobkeena afraad ee isweydiinina waxa weeye qofka tusaale ahaan hadiiba inta waxyaabaha sababay mid kamid ay jiraan ama kelida ka dhaawacaya ama UTI uu qabo ama inflammation uu jiro ama kidney stones uu jiro calaamadaha lagu garto ama calaamadaha lagu garto inay sareyso leukocyte-ka ku jira urintiisa waxa kamid ah inuu inta ureteraha ama inta ilaa kaadi haysta ilaa uu ka dareemo pain fara badan in kaadida oo kale marka urination sameynay ay gubto uu kaadidiisu tusaale ahaan uusan ama xejisanba karin ama marka urination sameynayo musqusha uu joogo ay kaadi uu gubayso xanuun dareemay waxa kale oo kamid ah frequent urination in frequency-ga ama tusaale ahaan haddii qofku normal ahaan 2 saac ama 3 saacba urine mar uu suuliga u geli jiray inuu markan ka farabato
oo tusaale ahaan adiga oo yaqaana inaad maalintii ilaa 4 jeer urination samayso ama aad qofku kaadi qabato 5 goor oo kale haddii 15 jeer ay ku qabato oo kale waxba isbedeli marka urinationko ama oo farabata isaguna qayb uu ka yahay waxa kale oo kamid ah in qofku xumadoo kale yeesho iyo sidoo kale ta ugu muhiimsan oo ah urinta lafteedii in urintii normalka ahayd ee khafiifka ahayd ee pale yellow colorkeedu ahaa ee qofka ka imin jirtay in uu ay farabadato maxay ahayd hoolay ay lagu arko iyadii oo cloudia sida daruuraha kala oo kaadidii oo aad moodo in wax dhex yaacayaan oo wax badan ay ku dhex jiraan oo la dareemi karayo amaba iyadii oo dhiig ba mararka qaar waa lagu arki karaa oo casaan way samayn kartaa marka waxyaabahaasna waxa kamid ah calaamadaha lagu garto inta ugu badan waxyaabaha lagu daweeyaa waxa kamid ah horta qofku inuu dhakhtar booqdo oo dhakhtar la tashado oo urine exam loo sameeyo oo urintiisi la baaro kadibna cilad waxyaabaha intii la ogaado waxa kale oo kamid ah in hadiiba ay dhaawacay meeshii ka jiro oo kale la saaro maxay ahayd hoolay waxa la yiraahdo computer oo kale lagu eego in dhaawac meelaha ka jiro urethraha ama kelida qodobada ugu muhiimsan ee isweydiinayna waa intaasaan kusoo koobina casharkeena channelkeenu kor buu socdaa maasha Allah meel fiican baadna soo gaarsiiseen muddo kooban idinkaana mas'uulka inaan heerkaas soo gaarno aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dhammaan ardayda iyo akhyaarta kale iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo nagu xiran aad baan idinkaga mahad celinaynaa saad korna ugu qaadeen meesha ayaa meel ka sareysa waan hiigsanaynaa annaguna si aan casharaanta yale mar walba idinku soo gudbino halka meel ka sareysa ayaan hiigsanaynaa insha Allah subscribe ta like ta share ta nala moogaanina insha Allah casharaanteenu saataxana ay noogu socon doonaan arday badan oo waxa jira casharaan iyo soo qorta nooca noo soo turjun ama nooca nooga soo sharax insha Allah waynu gaadhaynaa waxaan dadaalaynaa waxaan rajaynaynaa in weegiiba 2-3 cashar soo galino insha Allah wixii tala iyo wixii tusaalana waa la isku leeyahay waad mahadsantihiin intaan casharka ku xiga iskugu imanayna waxaan leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.